dowladda Israa'iilna waan ku hambaleynayaa dhiiranaanta ay ku dhiiratay in aynu noqono dal jira oo caalamka runtii la jaanqaada. Horta dood wanaagsan bay ahayd runtii safiirkii qaramada midoobay u fadhiyay dowladda Israa'iil si wanaagsan ayuu dooda uga qayb galay in shacabka reer Somaliland la xasuuqay 1988kii rejiimkii militariga ahaa ee hogaaminayay igacabkii Maxamed Ziyaad Barre. codka videoda uu ku taageeray runtii waxay noqon kartaa aqoonsi maldahan oo sarbeeba oo uu Maraykanku runtii halkaa isna uu maaragtay waa dowladaha wuxuu ka mid yahay dowladaha ugu quwadda weyn waana dowladda keliya ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya qaramada midoobay runtii Somaliland runtii waxay u tahay guul weyn shirka ama iyo fursad labaad dowladda Maraykanka. siyaasi Shacab Cabdilaahi Xuseen oo ka mid ah qurba-joogga reer Somaliland ee magaalada Toronto dalka Canada ayaa ku sugan dalkiisii hooyo oo la aqoonsaday maanta kuna dabaaldegaya. ugu horreyn Shacab, sidaad u aragtaa aqoonsiga Israa'iil ay siisay Somaliland? bismillaahi raxmaani raxiim walaalkay Cabdilcaziz Bashiir Nuur adiga bahda saxaafadda waa idin salaamaya marka hore marka xigta waxaan aad iyo aad runtii aan u hambaleyna dhammaan shacabka reer Somaliland meelkaasay joogaan gudaha iyo dibad aqoonsiga bisha December ay ahayd 20 maalin Jimcaha runtii waa arrin aad iyo aad runtii wanaagsan oo aynu sugaynay in ka badan 35 sano dowladda Israa'iilna waan ku hambaleynayaa dhiiranaanta ay ku dhiiratay in aynu noqono dal jira oo caalamka runtii la jaanqaada. siyaasi Shacab Cabdilaahi Xuseen doodii qaramada midoobay habeen hore ka dhacday ee fagaaraha dowladda Israa'iil ay ku soo bandhigtay xasuuqii Somaliland iyo xaq ahaanshiyaha qarannimadeeda, bal maxaa kaaga baxay adiga aqoon-yahan? horta dood wanaagsan bay ahayd runtii safiirkii qaramada midoobay u fadhiyay dowladda Israa'iil si wanaagsan ayuu dooda uga qayb galay xaggan Soomaaliya ninkii Xasan Culuso uu u soo magacaabay Abuukar Baale oo runtii wax aanan runtii meesha mudnayn iyo hadalla aanan meesha ku mudnayn meesha ka yidhi taasoo runtii uu daadafeeyey in shacabka reer Somaliland loo geystay dowladdii rejiimka ahayd ee afweyne in shacabka la barakiciyey xasuuq iyo genocide loo geeyey ayuu daadafeeyey hase ahaatee madaxweynihii isagu soo doortay ayaa runtii ka hadlay in shacabka reer Somaliland la xasuuqay 1988kii rejiimkii militariga ahaa ee hogaaminayay igacabkii Maxamed Ziyaad Barre. runtii dooda waxa runtii ku gacan sareeyay oo runtii aad iyo aad beesha caalamka ay u soo dhaweysay Somaliland oo runtii dowlado badan ay ka hadleen iyo safiiro badan oo isugu yimid kulanka isaga ah oo ay weliba codsadtay Soomaaliya. marka aniga gabi ahaanba waxaan leeyahay runtii arrin aad iyo aad runtii loo baahnaa in muddadii 35 ahayd ee shacabkan runtii ay sugayeen maanta ilaahay uu clear ka dhigay oo ay dowladda Israa'iil ay ku dhiiratay in Somaliland ay ka mid noqoto dowladaha caalamka jira ayna noqoto dal madax bannaan oo runtii ka mid noqon doonta dowladaha caalamka. siyaasi Shacab Cabdilaahi Xuseen, dowladda Maraykanku codka veto power-ka oo ayay si dadban Somaliland ugu taageertay maadaama oo ay sheegtay in Israa'iil xaq u leedahay inay cid ay rabto dal u aqoonsato danaheedana ay ka aragto. taasi miyaan la odhan karin waxa weeye quraanjay ku quuso Somaliland Maraykanku si dadban buu u aqoonsaday? waa runtii Cabdilcaziz oo runtii arrinka codka videoda uu ku taageeray runtii waxay noqon kartaa aqoonsi maldahan oo sarbeeba oo uu Maraykanku runtii halkaa isna uu maaragtay waa dowladaha wuxuu ka mid yahay dowladaha ugu quwadda weyn waana dowladda keliya ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya qaramada midoobay runtii Somaliland runtii waxay u tahay guul weyn shirka ama iyo fursad labaad dowladda Maraykanka arrinka isaga ah
siyaas shacab cabdilaahi xuseen gabagabadii maxaad ugu baaqaysaa shacabka jamhuuriyadda somalilan iyo dowladooda guud ahaan وصح وريا عبد العزيز وسؤال هذا ونكسن حسا هاتي وحن شعبك رير سومالان ugu baaqaya ee ku nool lixda gobol ama magaalooyinka waaweyn ee Somaliland caawa waxay ku beegan tahay habeenkii sanadka cusub Happy New Year waxaynu sagootineynaa sanadkii 2025 waxaynu soo dhaweyn doonaa sanadka cusub haddii ilaahay dhaado 2026 waxaan rabaa inaan baaq u diro dhammaan shacabka reer Somaliland ee ku nool wadanka lixda gobol inay feejignaadaan oo ay cid alla cidii ay ka shakiyaan ama ay tuhumaan soo wargeliyaan ama soo gaarsiiyaan laamaha amniga sida saldhigyada ama xarumaha amniga ama saldhigyada booliiska waayo waxaad ogtihiin in Somaliland uu cadowgeedu aad iyo aad u farabatay markaa waxaan doonayaa munaasabada si aynan uga faa'iideysan munaasabadan Happy New Year-ka in ay bulshadu feejignaato oo cid alla cidii ay tuhumaan ama ay ka shakiyaan soo gaarsiiyaan sida ugu dhaqsaha badan laamaha amniga ta kale waxaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo laamaha amniga ugu baaqaya in ay notice u diraan dhammaan hubeelada iyo gas hawsyada iyo Airbnb-yada la kireeyo inaanan laga kireyn karin cid aanan haysan national ID ama passport oo fiisa wadanka ku jooga ama aanan haysan damiin inaynan ka kireyn waliba waxaan soo jeedinayaa codsiga in laga hayo passaportka ilaa intuu wadanka ka dhoofayo aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaan bulshada reer Somaliland dibadda iyo gudo waxaan leeyahay happy new year insha Allah ilaahay sanadkan sanadkiisa cimri iyo caafimaad iyo ictiraaf buuxa ilaahay haynagu gaarsiiyo